السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا وادين سو دوينيا سيدتهين وفي عنتهين ان maanta program aad u fiican ayaa idin wadaa. Programkaas aan kusoo qaadan doono cuntooyin aad iyo aad muhiim u ah, caafimaadka muhiim u ah. Cuntooyinku waa kala duwan yihiin. Cunto waxaa jirta jirka sun ku ah, cunto waxaa jirta jirka daawo u ah. Marka cuntada aan wado maanta waa cunto jirka daawo u ah oo ka ilaalinaysa cudurro fara badan, ka hortagaysa gabowga, ka hortagaysa skin problemka, ka hortagaysa wadna xanuunka iyo cudurradan ku dhaca wadnaha iyo arthritis waxyaabaha la dhaho oo lafaha ku dhaca. Cunto protection ku ah oo ka difaacaysa waxyaabo fara badan oo bani aadamku leeyahay. Number 1 waa looska aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. wuxuu leeyahay looska fat aad u fiican oo la yiraahdo omega 3 waa taqaanaan, waa fatka aadka u fiican. maskaxda ayuu u fiican yahay, xusuusta ayuu u fiican yahay. marka qofka bani aadanka gabowga oo kusoo bilaabanayo waxaa lagu gartaa maskaxdii ayaa yaraata qofka. marka taas ayaa aad muhiim ugu yahay inuu maskaxda ku protect gareeyo si aadan maaragtay maskaxdu ayna ka gaboobin oo waqtigeeda uun ku gabowdo. Number 2 waxaan kusoo qaadanayaa parsley, bahasha la dhaho parsley waxaa laga wadaa tan kabsar caleenka u eg. bahashan kabsar caleenka u eg ayaa parsley la dhahaa. aad iyo aad ayay vitamino fara badan ayay leedahay. vitaminada ay leedahay lama soo koobi karo. vitamin K ga kamid ah, waxaa kamid ah vitamin C, waxaa kamid ah vitamin A. vitamin A indhaha ayuu u fiican yahay. ogtiin vitamin C skinka u fiican yahay. vitamin K gana waa ogtiin qofka haddii uu dhiig baxayo waa wuxuu ka dhigaa vitaminka kaliya ee dhiigga maaragtay xinjirta u yeela si aadan u dhiig baxin. ileen qofka bani aadanka uu iska dhiig wax yar xataa haddii ay meel yar ay dilaacdo uu iska dhiig bixi karaa. marka kaas ayuu ka ilaaliyaa vitamin K ga. wuxuuna ku badan yahay parsley bahashan la dhaho oo kabsar caleenka ayay u eg tahay. number 2 waa taas. number 3 waxaan kusoo qaadanaya sweet potato ama bataatiga maaragtay guduudan. sweet potato waa ogtihiin lama soo koobi karo. sweet potato lama soo koobi karo. waxyaabaha jirka protect gareeya sweet potato waxa ku jira wax la dhaho beta carotene oo vitamin A aad u muhiimsan, indhaha u fiican oo skinka u fiican. vitamin waxa ku jira C, vitamin all vitamins ku jira. haddaad maqasho sweet potato vitaminado dhan ku jira. asaga kaligiis ayaa xataa u cuni kartaa cunto ahaan, uma baahnid xataa cunto kale inaad ku dardarto. taasi waa number 3. number 4 waxaan kusoo qaadanayaa bahalkan la yiraahdo avocado ayaan kusoo qaadanayaa. avocado waa ogtihiin, avocado waa fruit, waa inflammationkana waa ogtihiin waa waxyaabaha jirka dhaawaca. anti-inflammation wuxuu ka hortagayaa waxyaabaha jirka dhaawaca. avocado xataa waxa ku jira vitamin omega 3 ayaa ku jira. omega 3 oo aad isagana skinka ugu fiican. skinka ayuu smooth ka dhigaa. xataa timahaad marsan kartaa. avocado waad ogtihiin skinkaad marsan kartaa. aad iyo aad ayuu u protect gareeyaa skinka. number 5 waxaan kusoo qaadanayaa chocolatekana waxa waaye dark chocolate oo la yiraahdo dark chocolate. aad iyo aad ayuu u fiican yahay. chocolatekaas badanaa waxaa laga helaa dukaamada, laakiin chocolateka sonkorta ku jirta maaha. waa chocolate oo asaga kaligiisa ah oo maaragtay aan sokor iyo caano iyo waxba lagu darin. aad u madow yahay, waana qaraar, macaan maaha, waa qaraar. marka waxaa la yiraahdaa dark chocolate. waa chocolatka madow. inflammationka ayuu ka baabi'inayaa, maqaarka ayuu fresh ka dhigayaa. number 6 waxaan kusoo qaadanayaa blueberry aad ayuu u fiican yahay. blueberry lama heli karo. blueberry wuxuu yahay brainka ayuu protect gareeyaa. brain aging wax la yiraahdo ayuu ka hortagaa. brainka ayuu ku ilaalinayaa. wuxuu leeyahay vitamino fara badan aan la soo koobi karin. waa inflammationka oo dhan uu ka ilaalinayaa. number 7 waa
babayga wax la soo koobi kara maaha. Babayga caloosha u fiican yahay, waa maaragtay antibiotic. caloosha u fiican yahay, calool xanuunka, infectionka iyo waxyaabaha fara badan, boogagta badan ee jirka ku jira ayuu daaweeyaa. lama soo koobi karo babayga. babayga aad iyo aad ayuu u fiican yahay, wax la heli kara maaha. Number 8 waxaan kusoo qaadanaya spinach. spinach ayaan kusoo qaadanayaa. spinach waa ogtihiin aad iyo aad ayay muhiim u tahay. spinach waxaa ku jira waa ogtihiin ironka ama birta. dadka maaragtay especially hooyooyinka ama caruurta dhalay ama uur kale ayuu aad ugu fiican yahay, waayo waxay u baahan yihiin mar walba iron ayay u baahan yihiin, ama waxay u baahan yihiin birta dhiigga ayay usoo celisaa. vitamin A ayaa ku jira oo aad iyo aad indhaha ugu fiican, lama soo koobi karo. number 9 wuxuu noqonayaa barbarooniga. barbarooniga isaguna lama soo koobi karo, vitamin C fara badan ayaa ku jira. barbarooniga kalarada leh waliba ani barbarooni adiga blue cagaar ha ahaado, yellow ha ahaado, ama guduud ha ahaado, aad iyo aad ayuu jirka ugu fiican yahay. vitamino aan la soo koobi karin ayaa ku jira. number 10 waxaan kusoo qaadanayaa bahalkan la dhaho broccoli. broccoli waa taqaanaan, broccoli waa cagaar, waa cagaaran yahay. broccoli badanaa waxaa laga helaa dibadaha ayaa laga helaa umaleynaa. I don't know Soomaali in laga helo, laakiin badanaa dibadaha waa laga helaa. broccoligaas wuxuu u fiican yahay, lama soo koobi karo. intan vitamino aan idin soo sheegay ee iyagoo dhan lama soo koobi karo. broccoli isaguna vitamino fara badan ayaa ku jira. caloosha xataa caloosha wuu socodsiiyaa, xataa caloosha maaragtay dadka caloosha fadhida wuu socodsiiyaa, caloosha wuu socodsiiyaa. vitamin K ku jira naftigiisa, vitamin C ku jira, vitamino fara badan. intan aan soo qaatay 10kaas shay ee aan soo qaatay waxaa ku jira vitamino, hal vitamin kuma jiro. halka shay uu kamid yahay hadda broccoli oo kale, vitamino fara badan, minerals fara badan ayaa ku jira. intan vitaminaha aan soo qaatay looska ha noqdo, maxaa idin soo sheegay? waxaa idin soo sheegay blueberry aan soo sheegay, waxaan soo sheegay blueberry chocolate aan soo sheegay, looskan soo sheegay, waxaan soo sheegay avocadodan soo sheegay, parsley aan soo sheegay, barbaroonigan soo sheegay, waxaan soo sheegay babaygan soo sheegay, broccoli aan soo sheegay, waxaan soo sheegay bataatiga guduudan. intaasoo dhan halka kaliya ayaa intaasoo vitamin ku jira. marka imagine haddii aad isticmaasho iyagoo dhan waa isticmaali kartaa maalintii. wax yar waxaad ka cuni kartaa in yar, mid kasta in yar ayaa ka cuni kartaa. everydayna waa isticmaali kartaa. wax maaha oo kugu badanayo, ha isku badin, of course ha isku badin, laakiin waxaan ka wadaa everyday waa cuni kartaa. qayb kasta in yaraa kasoo qaadanaysaa, waa cuni kartaa. maasha allah tabaarakallah. wax la yiraahdo aging ama gabow la yiraahdo ayuu kaa ilaalinaya. waxoo dhan cuduradoo dhan ayay kaa ilaalinayaan. waxyaabahan aan idinla qaybsaday kulli cuduraday kaa ilaalinayaan. cudurada ay ilaalinayaan waxyaabaha bani aadanka oo dhibka u keena ama maskaxdiisa. meesha oo kow oo qofku uu ka gaboobo waa maskaxda, waa maqaarka iyo jirka kale inta kale. marka maskaxda iyo maqaarka waxa ilaaliya waa vitaminadan cuntada ku jirta. xataa vitaminada banaanka laga soo gato waxa ka muhiimsan kan cuntada ku jirta inaad isticmaasho. marka cuntooyinka waa kuwee, waa inaad ogaataa. cuntooyinkana waa cuntooyinkan aan maanta idinla qaybsaday. waxaan filayaa inaad maaragtay ka faa'iideysan doontaan. aad maaragtay walaaladiina ama saaxiibadiina aad la qaybsan doontaan insha allah. aad ka faa'iidi doontaan ayaan u malaynaya insha allah. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. aad iyo aad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.